jiif caaqil dhawaan lagu caleema saaray magaalada Ceergaabo ayaa kulan marti sharafeed waxa uu sameeyay xuqaasha bilaha dega magaalada Ceergaabo wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen Darwiish ayaa faafaynta warkan Ceergaabo ka soo diray jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus oo dhawaan lagu caleema saaray magaalada Ceergaabo ayaa wuxuu maanta arimo sharafeed qadaha ku maamusay salaadiinta xuqaasha iyo waliba waxgaradka qaar ka mid ah beelaha degan magaalada Ceergaabo waxaana munaasabadaasi qada sharafeedka kadib qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo waxgaradkaasi oo halka ka hadlay ay jiif caaqilkan cusub uga mahad celiyeen harimo sharafeedkan uu sameeyay sidoo kale waxay beelaha gobolka Sanaag iyo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay la shaqeeyaan jiif caaqilkan oo noqonaya jiif caaqilka guud ee magaalada Ceergaabo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa uqaashi oo dhan salaadiintii waayeel dhaqameedkii ayaa casuumadan iyo qada sharafeedkan fadhiya waana hawl gabagabowday maalintii dhaweydna waanu idin sheegnay la caleema saarayay umuurtu sidaas ayay ku dhan tahay jiif caaqilka way dhamaatay caleema saarkii waatay maalintii dhaweyd ahayd imka waa alla barigay weeyaan waxaan leenahay haddana anagu waxaana kuwa shaabada la dhashaabadeeyay baan ka mid ahaa maantana waxaanu leenahay sawdka iyagu ducadii iyo baanu u raacinaynaa iyo waxay dardaarana waxaan leenahay ilaahay meesha xilka lagu saaray ee mudada dheer soo jiro reerihiin ayaan xidhiidha in ilaahay idin tuso khilaaf la'aan iyo barako halkan waxaanu isugu nimi jiif caaqilka barakaysan ee hore loo doorto aana ku shubkiis u horeeyay ayaa macsuumadii sharafta lahayd maanta lagu cunayaa aad iyo aadna loo soo xulay weeye nin barakaysan weeye waa soo jireen ka awow taariikhdiisu waa qoran tahay Ceergaabo markii la aasaasay waa ka horeysay awowayaashii taariikhdooda Sanaag waa laga ogyahay oo galbeed waa laga ogyahay sidaa nin waliba waa inuu ogaadaa jiif caaqilka la doortay Caynaanshe Caynab la keenay hawshiisa la qabanqaabiyay wax laga qabtay nala ogeysiiyay nala ku yeeray waa ugu ducaynaynaa xilkii loo doortay halka waxaan isugu nimi casuumaadii iyo qada sharaftii jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus waxa weeye waanu dooranay waana soo xulay xilka loo dhiibay waxaanu ugu ducaynaynaa ilaahay inuu ku asturo oo ilaahayna barakeeyo jiif caaqil Caynaanshe Axmed Cali Aamus waa jiif caaqil Sanaag oo ah beelaha uu ka soo jeedo jiif caaqilkoodii maamulka iyo beelaha deganba gobolka waanu u sheegaynaa cidda keentay jiif caaqilka cusub Caynaanshe iyo soo dooratay ee keentay ee soo ajiibtay annuna waa la qaadanay qada sharafta jiif caaqilka Caynaanshe Caynab Cali Aamus waa ka mahad celinaynaa halka maanta qada sharafti baa ka dhacday waana hoolkii maalintii hore ay ka dhacday xafladii caleema saarku waan joogay anigu anoo ku hadlaya afkii boqor Xuseen Maxamuud Yuusuf oo ka mid ah beesha Cabdulla Yoonis tii horena si fiican bay u dhacday tan maantana si fiican bay u dhacday waanu ka mahad celinaynaa casuumaadana lagu casuumay qada sharafta waxaanu ayidsanahay la shaqeynaa jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus sidoo uu yahay jiif caaqilkii beesha Habar Yoonis bari ee gobolka Sanaag waxaan ka mahad celinaynaa qada sharafta nalagu soo casuumay ee aanu ka soo qayb galnay waa jiif caaqilkii degmada Ceergaabo gaar ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo jiif caaqilkii loo doortay weeye waa la dooranay waa wada dooranay jiif beela maanta maaha Sultan Ali Yusuf Badacas ayaa hadal kooban oo isaguna halkaas ka yiri waxa kamid ahaa jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus oo maanta ay tahay alla barigii weynaa ee qada sharafta ahaa waanu ka mahad celinaynaa waxaanu kale aad uga mahad celinaynaa dhaqankii gobolka oo dhan oo uu nasiib u yeeshay maanta rag badan oo aan sarki jirin inuu isku keenay waxaan halka fariinta u diraynaa dawladda Soomaaliland iyo uqaasha gobolka iyo kuwa Soomaaliland ba inay la shaqeeyaan iyaanu faraynaa ugu dambeyntiina munaasabadan hadal kooban oo mahadnaq u badan waxa ka yiri jiif caaqilkan cusub jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus ajiibista ay soo ajiibteen ee igu timaadeen madasha tan aad baan idinka mahadnaqayaa waayo waa dhawaaqii u horeeyay ee aan bixiyo oo yiri ii kaalaya waa ay soo ajiibteen ilaahay jisaayigiisa haydin mariyo waxa ay saarteen xil weyn ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilka ii fududeeyo uqaashi baad tihiin
iga horraysay iga daaweyn ruugcadaaya waxaan u baahanahay gacantiinna waa u baahanahay taageeradiinnana waa u baahanahay isgarabtaaggiinnana waa u baahanahay waxaan idinka codsanayaa inaa ila shaqaysaan waa cabdullaahi xuseen darwiish Somali Cable TV magaalada Ceerigaabo.